hay-adda keer ayaa siminaar u qabatay dadka iyo guddoomiyaasha deegaanada Cadaadley, Geed Ballaadh, Allay Baday, Dhubato iyo Allay Baday, Xariirad iyo Saylac, kaasi oo ku saabsanaa habka maamulka biyaha miyiga ee dadka reer miyiga ah. Guddoomiyaha gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi, maayir ku-xigeenka magaalada Gabiley Cabdi Yuusuf Daahir, Kamaal Maxamed Faarax, khabiirka farsamada ee biyaha hay'adda keer, isuduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Gabiley Xasan Maxamuud Cumar Gasle oo siminaarkaasi furay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa. hawshan maanta aan isugu nimid meesha anigu waxaan oran karaa waa hawl la qabtay waqti loo baahnaa ama waqti ku munaasib ah oo hawshan oo kale marka ay jiraan xilliyadan abaaraha priority-ga ama muhiimadda koowaad ee loo baahan yahay waa biyo. marka waa muhiim waqtigan oo kale in la dardar geliyo hawlaha biyaha ceelasha balliyada wixii biyo khuseeyay in waqtigan oo kale la dardar geliyo hadday tahay tababar hadday tahay dhiirigelin hadday tahay dib u habeyn waa waqti ku munaasib ah in la qabto wasaaradda biyaha hay'adda keer labadaba waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa waxqabadka ay ka geysteen inta ay socotay hawshan iyo qaabka ay usoo abaabuleen seminaarkan ama waxa weeyaan aqoon iswadaarsigan guddoomiyaasha degmada iyo isuduwayaasha iyo xirfadlayaasha iyagana waxaan farayaa wixii halkan ay ka koorsadeen inay iminkaba ku dhaqaaqaan oo wixii goldaloolo ah ee jira ay naga awdaan. haddaan ku yaro noqdo siyaasadda dawladda ee ku wajahan biyuhu waxay tahay waxyaabaha mudnaanta koowaad la siinayo. waxaa tahay inoo caddayn karta intii ay jirtay xukuumaddan mudane madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo oo hogaamiyaha ka yahay tirada ceelasha riigaga ah ee waddanka laga hirgeliyay waa 147 riig. marka loo qaybiyo 5 sanadood ee uu xukunka hayay madaxweynuhu sanadkiiba waxa la fuliyay 30 riig. intaa waxaa dheer boorhooliskii ceelashii gacanta laga dhaansanayay waxaa dheer balliyadii halkaas waxaa inooga cad in ay dawladdu ku dadaalayso in ay dadku helaan biyo wanaagsan oo nadiif ah oo waqtiga baahiyaadka ama abaaruhu jiraan lagaga raysto distance-kii fogaa ee laga soo biidhaamin jiray. waqtiyada qaar waxaa dhici jirtay haddii biyo dhaamis dhaco halka ugu dhow ee laga soo biidhaamin karaa for example Gabiley oo kale inay Hargeysa noqoto. hadda dee wax weyn degmada Gabiley markaan ay Geed Ballaadh oo talinoo sheegayo waxaan leeyahay Allay Baday marka waxay waa distance-kii ugu yaraanaya oo markay booyintii ceelka dhow ka soo dhaamso waxa laga yaabaa maalintii 3 jeer ama 4 jeer halkii biyaha loo baahnaa inay gaarsiiso. laakiin markay distance fog biyo ka doonto waxa laga yaabaa maalintii oo dhan hallow inay keento. waanay wadaysaa dawladda insha Allah biidhnillaahi baari awoodeeda wax kala hadhimayso. idinkana waxaan idin farayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu wajacalnaa min al-maa'i kulla shayin hayya. wax kasta waxaan ku noolaynay biyaha in dadka gacanta ku haya sida uu ka dhawaajiyay guddoomiye ku-xigeenku ceelasha gacanta ku haya inay feejignaan dheeraad ay yeeshaan weliba khaasatan waqtiyada abaaruhu ay taagan yihiin inay laabaan awriskii shaqada iyo waqtiyada ay shaqayn jireen. mar labaad waan u mahadnaqayaa hay'adda keer wakaaladda biyaha. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hay'adda keer oo badanaa inta badan qabadkeedu badan yahay xagga bariga Somaliland waxa ay inta sanadkii dhamaaday ay ka dooratay wasaaraddu u qoondeysay 4 ceel oo xaggan ku yaala iyo tababaro dhowr ah oo ku saabsan biyaha. arrintaas oo aan dadaalinay in abaaraha ka hor ceelashaas inay shaqeeyaan ay ahay oo mataqaanaa bishii 3aad ee sanadkii hore ee wasaaradda biyuhu iyo dhammaan hawlada ku hawlan biyuhu way sii ogaayeen oo saadaashu way ku jirtay inay xilli roob yar jirto oo abaaray dhacaysay. marka waxa muhiimadu ay tahay oo ay kulankeenu ku fadhiyaan wasaaradda biyaha iyo keer iyo hay'ado kale oo fara badan waxay u arkaan dhibaatada haysata ceelasheena miyiga inay tahay xagga maamulka inay u badan tahay dhibaato kale oo fara badan way jirtaa oo qadaraasla wax khariba
waxa weeye waxaan u malanayaa anigu shakhsi ahaan seminaaro badan baan horta tegey kan maanta wuxuu weeye kii iigu qiimo badnaa ayaa ku tiranaya runtii sababta waxa weeye dee abaarahaynu ku jira waad arkaysaa iyo dhibaatada ka taagan biyihii baa marka maanta laga hadlaya biyo walba lagama hadlaye waxaa laga hadlayaa biyihii nolosha ku dhisnayd soo badaan garan marka waxa weeye saasa horta ay muhiim u yahay seminaarkan maanta runtiina aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa wasaaradda biyaha oo soo qaban qaabisay seminaarkan waxaana weeye ujeedadiisa ugu weyn sidii aan la soconeen la sheegay waa sidii maamulka loo hagaajin lahaa ceelasha degmooyinka ka dhisan ceelashaas haddii maamulkoogu hagaago runtii wax walba way hagaagayaan haddaba waxaan anigu soo jeedin lahaa oo iga talaa si aan marka horeba annagoo dhexdeeda aan uga doodaynay in wasaaradda biyaha hay-adaha qandaraaska ay siiso dowladaha hoose ay xidhiir yeeshaan waxaa dhici jirtay xilliyada ka mid ah oo iminka labadaa ceel uu ka dhawaajiyey isku duwaha biyuhu ee dareema boob iyo geedbalaadho kale ay ku filaan jireen dad fara badan oo meelo badan ka yimaada maantana waxaa ku filaan laayihin iska daaya kuwii intii meelihii yaraa deegaanadii ugu dhowaa ayaa maanta baahidoodii dee la daboolaayeen way fadhiyaan qoladii maamulka iyo qoladii tulle biyaha gacanta ku haysagoo indhawaalo annaga nagu dhacsa xilliyada abaaruhu taagan yihiin in si kedis ay ceelo u jabaan ama ay timaado dayacaad biyood si taa looga hortago ayaa loo sameeyey hadda xilligan aynu ku jirno gobolkeena Gabiley oo biyo la'aan xoog badan ka taagan tahay mid ka mid ah ceelasha istiraatiijiga ah oo la yiraahdo Beerabo oo bil ka hor la sameeyey ayaa haddana maanta fadhiya waxaan kaga faa'iideysanaynaa maanta shirkan inaanay nagu dhicin dhibaatooyinka noocaas oo kale